sidaad warkayagaba ku maqlayseen xalay waxaa magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina ka bilowday shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ay mar labaad madaxweyne Barack Obama ugu soo magacaabayeen inuu u tartamo madaxweynenimada. waxaa wararka ka soo baxaya Charlotte ay sheegayaan in khudbad aad u xamaasadaysan ay dimuqraadiyiintu xalay ku faahfaahiyeen shirkoodaasi amaba ay ku daahfureen, iyadoo ugu dambeyntiina khudbad dad badan qiiro gelisay ay halkaasi ka jeedisay marwada koobaad ee Mareykanka Michelle Obama. Cabdiraxmaan Yabarow oo ka tirsan laanta af Soomaaliga ee VOA oo aalaaba faaqida arrimaha siyaasadda Mareykanka ayaan goordhaweyta kala sheekaystay khudbadii xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanku ay xalay soo bandhigeen. waxaana Yabarow weydiiyey inuu marka hore uu sawir guud naga siiyo jawigii uu xalay shirweynaha xisbiga dimuqraadigu uu ku bilowday. mahsanid Zahra, shirweynahani waxa uu jawaab u yahay kii toddobaadkii hore xisbiga jamhuuriga ay ku qabteen gobolka Florida. waxaa shirweynaha dimuqraadiga xalay lagu qabtay magaalada Charlotte oo ku taala gobolka North Carolina, oo inkastoo barsaabka gobolkaasi uu ka tirsan yahay xisbiga dimuqraadiga haweeneyda la yiraahdo Beverly Eves Perdue, haddana gobolkaasi imika waxaa ka jirta shaqaale-aan baahsan, waxaana uu ka mid yahay gobolada imika Mitt Romney uu kaga horeeyo Obama. ra'yi ururintii ugu dambeysay ee dadka fikirkooda lagu baarayay waxaa Romney la jiray 47%, halka Obamana uu ka haysto 43%. waana sidaas baan malaha isleeyahay waxaa dimuqraadigu ugu qabtay shirweynahoodan North Carolina si gobolkaas oo 4 sano ka hor Obama uu ku badiyey uusan mar kale ugu wareegin xisbiga jamhuuriga. haddiise aan u soo noqdo madashii shirka xalay lagu qabtay, waxa ay igu muuqatay in dadkii ka soo qayb galay shirweynihii dimuqraadiga xalayto ay ka xamaasad badnaayeen kuwii toddobaadkii hore aanu aragnay ee xisbiga jamhuuriga, oo sacabka iyo qaylada iyo boorarka ay wateen ay ka cudud weynaayeen kuwii aan hore u aragnay. waxaa iyaduna xusid mudan in dadkii dimuqraadigu uu soo xushay ee khudbeynayey ay khudbadahooda xoogga ku saareen arrimaha bulshada, halkii xisbiga jamhuuriga kuwii u khudbeeyey ay iyagu diiradda saareen shaqooyinka iyo dhaqaalaha. waan gartay marka arrimaha bulshada ee dadkii dimuqraadigu xalay la shir yimaadeen ay sida gaarka u xusheen maxaa ka mid ahaa? waxaa ka mid ahaa daryeelka caafimaadka ee madaxweyne Obama uu hirgeshay oo 6 madaxweyne oo isaga ka horreeyey ay u suurtageli weysay. waxaa dimuqraadigu ay xalay si weyn ugu doodeen in barnaamijkooda daryeelka caafimaadka waxaan loo baxshay Obama Care uu malaayiin dad siiyo caymis ay shirkadaha caymisku ay dibadda dhigi lahaayeen. waxaana tusaale u soo qaadanayaan in berigii hore ay jirtay in qofka hadduu cudur qabo aanay caymisku qaadanaynin oo insurance cusub aan la qorayn, iyadoo loogu qoyldayi jiray waxa la yidhaahdo pre-existing condition, xaalado sii jiray ama in qofku uu cudur leeyahay oo markaa aan loo ogolayn. laakiin imika daryeelka caafimaad ee Obama uu sameeyey darteed aan qofna shuruuddaas lagu xidhi karin. waxaa kaloo faa'iidooyinkiisa ay ka xuseen in carruurtu inta ay waalidkooda la joogaan ay imika caymiska waalidkood ku jiri karaan ilaa da'da 26 uu ka gaadho ilmuhu, halkii awal marka ay 22 gaadhaan laga saari jiray caymiska. waxaana ay si weyn ugu iftiinsheen arrinta daryeelka caafimaadka oo ay tusaale u soo qaateen haweeney iyadoo meesha ka hadashay oo ka timid gobolka Arizona oo la yidhaahdo Stacey Lehen, oo dhashay gabar yar oo imika 2 jir ah oo ku dhalatay xanuun wadnaha uga yaalay. waxaa Mrs. Lehen ay sheegtay in haddii aanu jiri lahayn daryeelka caafimaadka ee Obama, gabadhaasi aanay u heli lahayn lacag ay ku daweyso, laakiin nasiib wanaag ay la soo koobsatay gabadhaasi daryeelka caafimaadka ee Obama oo caymisku ay warqad u soo direen, taasna ay ku badbaaday. qodobka kale ee dimuqraadigu xalay aysan u kala harin waxaa ka mid ah sida maamulka Obama uu ugu hiiliyey arrimaha khuseeya haweenka. waxaana ay tusaale u soo qaateen sharciga Obama uu saxiixay oo qorayey in haweenku ay helaan mushaarooyin u dhigma kuwa ay qaataan dhigooda ragga ah. sidoo kale waxa ay xuseen in shirkadaha loo shaqeeya aysan dumarka u yeerinin caymiska ay siinayaan ama u go'aamiyaan, gaar ahaan marka ay noqoto arrimaha khuseeya caafimaadka haweenka. waxaa kaloo iyadana afka lagu ballaarshay in dadka u soo halgamay ee u soo dagaalamay ee ka qayb qaatay dagaalada ay ka mid yihiin Ciraaq iyo Afghanistan oo kale, dalku uu indho gaara siiyo oo daryeel gaar ah la siiyo. waxaana tusaale u soo qaateen oo madasha la keenay gabadh la yidhaahdo Tammy Duckworth
oo dagaalka ciraaq ka qayb qaatay iyada oo diyaaradaha helikobtarada wada laakiin waqooyiga ciraaq lagu soo riday kadibna ay halkaa ku luga beeshay gacanta midigtana wax weyn ay ka gaadheen gabadhaas oo luga bira ku socota ayaa madashii soo gashay sacab weynna dadkii ka heshay waxaana ay xustay oo ay sheegtay inay ku barbaartay oo ay ku kortay mashruuciyada dadka danyarta ah u adeega ee Obama uu taageerayo rabnina uu ka soo horjeedo oo ay ka mid yihiin cuntada food stamps-ka la yidhaha ee dadka aan saboolka ah la siiyo iyo daryeelka loo fidiyo dadka masaakiinta ah iyo waxbarashada laga kaalmeeyo dadka tabartooda dhaqaale ay liidato ugu dambayntii cabdiraxmaan waxaa shirweynihii dimuqraadiga khudbaddii ugu dambeysay xalay jeedisay marwada madaxweynaha Miss Michelle Obama wariyaasha qaar baa lahaa lama arag khudbad tan la mid ah oo marwo madaxweyne ay jeediso maxaa ugu muhiimsanaa waxyaabihii ay Michelle Obama xalay ka hadashay zahray Michelle Obama waxay xoogga saartay sidii dadka ay ugu muujin lahayd in saygeedu uu yahay kan u taagan dabaqada dhexe ee labada xisbi ay codkooda ku loolamayaan waxa ay ka sheekaysay sidii ay ku soo koreen iyadii Obama oo ay wax ku soo barteen iyada oo markay isguursanayeen lagu lahaa deyn aad u badan oo ay wax ku soo barteen oo deyntaasi ay bishii baxshaan lacag ka badnayd lacagta ay ku baxshaan mortgage-ka aqalka ay iibsadeen waxa ay tafaasiil mararka qaarkood xamaasad ay la hadli weysay ku xustay sidii aabaheed isagoo xanuunsan uu aroor kasta uu u shaqo tegi jiray isaga oo marnaba aan xagga dambe soo eegin uuna ugu dadaalay in uu waxbarashada ilmihiisa ku hubsado inay jaamacada galaan waxaana taas la mida bay tiri noloshii Obama uu soo maray oo ay ku sheegtay in hooyo keligeed ay soo korsatay iyo ayeydiis oo shaqaale hoose banki ka ahayd ay awoodooda ku soo saareen waxa ay xusay oo dadkii dhegaysanayay gaar ahaan kuwii meesha fadhiyey ay kaga qoslisay in markii ay bilaabeen inay iyada iyo Obama ay haasaawaan uu ku soo dooni jiray baabuur yar oo koombashalaba ama qoraqoro ah oo danyara ay ka muuqato laakiin Obama ay ogeyd inuu diiday shaqooyin mushaar weyn siin lahaa isagoo xushay mushaarooyin lacag yar laakiin dadka uu wax u tarayo ay u muuqdeen in ay isaga u baahan yihiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan yabrow oo iiga warramayay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga